dagaalka ka dhex socda labada beelood ee walaalaha ah ee dagaalkaasi googooska yahay waryaadeen in badan baan daawanay dagaalkana wiil kuma dhashay wiil baa ku dhintay abtiyaal dagaalka waanu joojinaa idina dagaalka joojiya dagaalka waanu joojinaa idina joojiya waayo waligeeyba wasaq joogi doonaa tani kale saaxiibkay xildhibaanku ka hadlay ma dheereeyadiyo nin meel kala joogay afar nin oo meel kala jooga oo yiri gobol state baan nahay de meel ay shir ku qabsadeen iyo meel ay golo ku sameysteen iyo meel arrimaha in la iska yiraahdo ma annaga dhex joogno wadankii idinaha nasii gubina sidii kale aanu gubano waa laga dambeeyaa iyo waa la wadaadii aan ku dhimanay idina ma tarad hiil nooga dhigisi anagu taa uma baahnidii waxaana waa sida xildhibaanku sheegay wax ka jira ma jiro arrinta xamar laga dhawaaqay nimanka sheegtay Goban State taasiyadu nimankii ugu horeeyay iyo xildhibaanada si uga hadleen ma taa uga taagan oo meel ay ku yiraahdeen waa guri hoostina way ku dhamaanaysaa dadkii deegaankuna lama qabaan annaguna Soomaaliland baan lama qabno taasiyadu halkaasaan ku dhaafaya talabaad waxa weey dawladdu waxaan u sheegaynaa in arrintaasi dhex ka noqoto annagu dawladdu waan daba taaganahay dawladdu waa dawladeedii siyaasiyiinteedu waan daba taaganahay kama hadalno kama baroorano TV-ga waxaan halkan iskugu nimidnaa shirkan jaraa'id u qabanay waa arrimaha ka taagan dalka gaar ahaan qaybtan galbeedka oo waqooyiga ah dhibaato weyn baa halka ka jirta dagaal baa ka socda dagaalla 24 saacadood la isku qaadayo ka socda dawladda arrimihii dawladana waa hawshii dawladdu waxay ahayd inay arrintaa wax ka qabato oo balaaye baa la yiri madax la qabtay leedahay daba la qabta ma lehe inay markii horeysay xagga u horeysay ka qabatay ahayd oo ay arrinta soo afjarto oo dadka isku keento oo walaalayso oo ninba wuxuu tabanaya iyo wuxuu sheeganaya oo la weydiiyo dabadeedna meel dhexe dadka iskugu keento una arrimiso u taliso oo dawladda si lagu yaqaan ay dawladeyso ayaa yahay marka waxaan leenahay waa dawladeey arrinta de sidii dawladii ahaan jirtay inaad uga qabato wax uga taliso yaa loo baahan yahay kale arrinkan laga hadlay ma garanaysaa siyaasiyiinka ah la leeyahay waa Goban State iyo waxaan la sheegayo annagu waxaan leenahay horta qodobka Goban State de horta meel lagaga hadlayay iyo meel lagaga arrinsaday iyo meel la iskaga yimiday iyo meel wax la iskaga weydiiyay midna ma aanan arago war ma hayno maqalka sidaad u maqlaysaan media uga maqlaysaan baan uga maqlaynaa waayo dad deegaanka jooga oo ama oday ha noqoto ama aqal ha noqoto ama suldaan wuxuu doonaba ha noqdee ka hadlay oo deegaanka degan oo ka hadlay oo maanta la oranayo dadkii deegaanka arrinka qaatay oo ka hadlay horta lama soo helayo arrin siyaasadeed oo dadkii halkan joogay dawladda ugu jiray ama siyaasadda ugu jiray reerkana cid ka hadashay oo la leeyahay hebel iyo hebel baa ka hadlay nama jirto sidaa darteed annagu waxaan u aragnaa wax yaanu hawada iska marayo ma garanaysaa la soo tuuray Goban State la leeyahay waxaan anagu garanayna maaha ragaas anagu inay xamar joogan meel lagu doortay runta ma naqaanaba oo meel aliye meel lagu doortay deegaanadan ay sheeganayaan waligood meel ay wax ka qabteen lama arag oo meel ay ceel ka qodeen lama hayo lamaba yaqaan cid dooratayna anagu ma naqaano sidaas darteed horta dadka deegaankuna waxay kula socdaan ma jiro waxaan ka ognayna ma jiro annagoo xildhibaanadii uqaashii salaadiintii waxgaradkii siyaasiyiintii beesha ciise ee degan Somaliland waxaanu ka hadlaynaa qolo xamar timi ka soo hadashay oo tiri guban baa la yiraahdaa waxaan leenahay xamarba ma haysaane maxaabad gudan ka imanaysaanba waxaan leenahay kuwii kale awalba halka kuwa idin la midaba way jiraan oo meelo kala sheegtay dadka dhibaato ha u keenina waxna ma matashaan halkiina awalba shaqo tag baad haydeen shaqadiina iskaga ekaada ummadda Somaliland iyo xukuumadana waxaan u sheegaynaa waxaasi wax dadka deegaanku ay qabaan ama ay aaminsan yihiin ama dhagahoogu ku dhacayaan maaha caawa iyo bari iyo sahan dambe asal ahaan isrihan dadkaasi waa dad Somaliland ah